السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي igu xiran kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub maanta waxaan ka hadlaynaa geedka loo yaqaan huruudda huruud waa geed daawo dhaqameed ah Soomaalida iyo dalalka qaar ku isticmaalaan caafimaadka waxaa loo yaqaanaa magacyo kala duwan balse guud ahaan waxaa loo og yahay inuu yahay daawo dabiici ah oo jirka u roon halkan waxaa idinku haynaa faa'iidooyinkiisa ugu horreyn calool xanuunka waxaa loo isticmaalaa in lagu dejiyo calool fadhiga iyo xanuunada caloosha 2 gaaska iyo dheefshiidka waxay ka caawisaa burburinta cuntada iyo yareynta gaaska caloosha 3 qandhada waxaa la cabaa si uu jirka ugu dejiyo qandhada iyo kulaylka 4 xanuunada dhuunta iyo qufaca biyo lagu kariyo huruudda ayaa lagu gargarayaa dhuunta iyo qufaca 5 madax xanuunka waxaa loo isticmaalaa si uu u dejiyo madax xanuunka fudud 6 nadiifinta dhiigga dadka badan ayaa aaminsan inuu caawiyo safeynta dhiigga 7 xoojinta difaaca jirka waxaa la sheegay inuu leeyahay awood ka caawisa jirka inuu iska caabiyo cudurrada 8 daaweynta finan iyo nabar fudud waxaa la mariyaa maqaarka si uu bogsiyo finan ama nabro 9 ka hortagga caabuqa waxaa loo isticmaalaa si daawo dabiici ah caabuqyada jirka 10 dhiigkarka qaar ka mid ah dadka dhaqanka aqaana waxay ku daaweeyaan cadaadiska dhiigga sare digniin inkasta oo huruudda uu adeegsado daawo dhaqameed haddana waa muhiim in taxaddar loo sameeyo qiyaasta badan waxay keeni kartaa waxyeelo looma isticmaalo habeenka uurka leh iyo carruurta yaryar ayadoo aan talo caafimaad la helin halkan waxaan sii wadaynaa faa'iidooyinkeeda 11aad xanuunka kala goosyada ama arthritis-ka waxaa loo adeegsadaa in lagu yareeyo xanuunka kala goosyada iyo murqaha 12aad hagaajinta wareegga dhiigga waxaa loo rumaysan yahay inuu dhiigga si fiican u socodsiiyo 13aad daaweynta mataga iyo labalabada shaha huruudda ah ayaa loo cabaa si loo dejiyo labalabada 14aad caafimaadka beerka waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo beerka daalan ama cillado ku yimaado 15aad dhiig yari ama anemia dadka dhaqanka yaqaano waxay sheegeen inuu dhiig cusub dhaliyo oo jirka xoog siiyo 16aad xanuunada kaadi mareenka waxaa loo isticmaalaa inuu nadiifiyo kaadi mareenka iyo xamiitada 17 hurdo la'aan 18aad xanuunada dumarka waxaa loo isticmaalaa in lagu dejiyo xanuunada caadada iyo wareegga dhiigga aan joogtaha ahayn 19aad ka hortagga infekshanka ilkaha iyo ciridka qaar ka mid dadka dhaqanka waxay ku cadaadiyeen si ay ciridka u keeyaan 20aad kor u qaadista tamarta jirka waxaa loo isticmaalaa sidii geed tamar badan siiyo qofka daalan ogow faa'iidooyinkan waa kuwa dhaqan lagu yaqaano ma ahan dhammaantood kuwa cilmi ahaan loo xaqiijiyey had iyo jeer waxaa fiican in la hubiyo dhakhtar ka hor intaadan adeegsan muddo dheer ama qiyaas badan halkan waxaan kugu soo bandhigayaa hab caan ah loo isticmaalo geedka huruudda daawo ahaan ugu horreyn shah huruud qaado dhowr caleen ama huruud budo ah ku rid biyo karkarayo ku daa 5 ilaa 10 daqiiqo shaandhay cab shaha waxaa loo isticmaalaa calool xanuun gaas labalabo madax xanuun iyo hurdo la'aan biyo lagu karkariyo qaado huruud ama caleen huruud ah ku kari biyo muddo ilaa 10 ilaa 15 daqiiqo marka ay diirmaan cab koob yar maalintii 1 ilaa 2 jeer waxaa loo isticmaalaa qandho caabuq iyo dhiig nadiifin 3 calaajinta jilif ama huruud yar aad calaajisid ama malab yar aad ku darsatid waxaa loo isticmaalaa xanuun dhuunta qufaca iyo ciridka 4 dufan dabada la mariyo jilifka ama caleenta huruudda ayaa la burburiyaa waxaa lagu qasaa saliid saytuun ama saliid qumba waxaa la mariyaa finan nabro ama meel bararsan waxaa loo isticmaalaa finan nabro yaryar iyo muruq xanuun 5 isku darka malabka budada huruudda ama caleenta la qalajiyey ayaa lagu daraa malab qofka wuxuu liiqaa subaxi ka hor waxaa loo isticmaalaa difaaca jirka xanuunada dhuunta iyo caabuqa caloosha digniin ha isticmaalin qiyaas badan qadar yar ayaa kugu filan carruurta yaryar iyo habeenka uurka leh ha isticmaalin iyadoo aan talo caafimaad la helin haddii aad leedahay xanuunada joogta ah sida sankarowga ama dhiigkarka ka fiirso taxaddar ka hor daawadayaal waxaan sii wadi doonaa faa'iidooyinka huruudda iyo dadka looga digayo isticmaalkeeda budada laga sameeyo xididka jaallaha waxaa loo isticmaalaa inta markaasi ka dhex leh quruxda
cuntada iyo daawo ahaanba. Haddaba waxaan eegaynaa faa'iidada, waxaana sharaxi doonaa sababta ay huruudda kugu fiican tahay, bal sidaa ay noqon karto. Waxaa ku jira waxa loo yaqaano curcumin oo ah unug bioactive ka ilaaliyo. Waxay ka caawin kartaa jirka in uu la dagaalamo astaamaha caabuqyada. Waxaa loo isticmaali karaa daweynta qaar ka mid a cudurrada kala-goosyada ku dhaco. Waxaa ku jira waxa loo yaqaano tameron oo laga yaabo in ay wax ka tarto daweynta istaroogga iyo cudurka xusuus guurka ama xusuus beelka. 5, waxay ka ilaalin kartaa cudurrada wadnaha iyadoo la dagaalanta suntan iyo bararka. Waxay naga caawin kartaa inaan la dagaalanno caabuqyada iyadoo sidoo kale inaga difaacayso xasaasiyadda. Waxay ka hortagtaa koritaanka unugyada kansarka. Waxay wanaajin kartaa niyadda qofka, waxayna sii dayn kartaa kiimikooyinka maskaxda faa'iido u leh. Waxay door muhiim ah ka ciyaari kartaa xoojinta xusuusta. Waxay unugyada ka ilaalin kartaa dhaawaca si ay u yareyso calaamadaha gabowga. Haddaba intana badan huruuddu waa ikhtiyaar aan dhibaato lahayn, laakiin xaaladahan qaarkood taxadar ayaa la soo jeedinayaa. Haddii aad uur leedahay, waa inaad ka fogaataa qaadashada wax badan oo huruud ah. Daraasadihii ugu dambeeyay ee xayawaanku waxay soo jeedinayeen in maadada huruudda ku jirta sidan kor ku xusnay uu bedeli karo heerarka hormoonka loo yaqaano estrogenka. Si kastaba ahaatee, in aad huruud wax yar ka isticmaasho sida cuntada ama cabitaanka waxay faa'iido u yeelan kartaa xilliga uurka. Haddii aad qabto dhiig yaraanta, birta ironka oo kugu yar, ka fogow inaad markaas cuntid huruud tiro badan. Huruuddu waxay u muuqataa in ay isku duubto biraha mindhicirka, taasi oo horseeda in ay nuumi waayaan, isla markaana waxay uga sii dartaa xaaladda yaraanta birta. Haddii aad la ildaran tahay dhagaxaanta xamiitada, xanibaadda xamiitada ama beerka oo ku xanuunayo, ogow in huruuddu ay kordhiso dheecaanka xamiitida. Haddii aad cuntadaada u isticmaasho xaddi badan oo huruud ah, waxaa laga yaabaa in xaaladdu ay kasii darto. Haddii aad daawo qaadanayso, talo weydiiso dhakhtarkaaga ama farmashigaaga. Dadka qaata dawooyinka dhiigga khafiifiya, dawooyinka sonkorowga ama PPI-yada sida omeprazole dib u soo celinta aashitada waa inay si gaar ah uga taxadaraan geedkan jaalaha. Weli waxaa jira wax badan oo laga baran karo saameynta iyo dhexgalka huruudda ee samayso. Ilaa haatan inta badan caddaynta waxaa laga soo qaatay daraasaadyo xayawaan lagu sameeyey iyo tuubooyin shaybaarka dhexdiisa waxaana loo baahan yahay cilmi baaris dheeraad ah si loo qiimeeyo saameynta huruudda ee caafimaadka wadnaha. Haddaba dhinaca dheefshiidka, waxa ay caawisaa dheefshiidka digestionka, waxayna ka hortagtaa matagga, calool fadhiga iyo gaas badan. Huruudda waxaa loo adeegsadaa dibad ahaan si loo daweeyo finan, nabro iyo maqaarka madow ama midabkiisu isbedelay. Waxayna leedahay saameyn nadiifin iyo nabar bogsin ah. Waxa ay sidoo kale ka kooban tahay maadadan curcumin loo yaqaano oo muddo markaasi ama maado leh awood sare oo ka hortagaysa bararka, anti-inflammatory-ga iyo xanuunka. Waxaa loo adeegsadaa dadka qaba arthritis-ka ama xanuunada kala-goosyada. Huruudda waxaa lagu tiriyaa geedaha ugu caansan dhinaca daweynta iyo ka hortagga cudurrada dunida dhibaato badan ku hayo. Waa geed aad loo daraaseeyey, ilaa iyo haddana la qiyaasayo in laga diyaariyey in ka badan 6,000 oo cilmi baaris qiimo leh. Cilmi baarisyada qaarkood waxay sheegeen inuu geedkan geli karo beddelka ilaa 10 dawo oo maanta dunida aad looga isticmaalo. Dad badan ayaa qaata dawooyin loogu talagalay in dhiigga milaan, dadkaas loo siiyey si loo daweeyo ama looga hortago xinjiroobista dhiigga oo halis u ah wadnaha, xanuunka iyo sidoo kale cudurka faleejiga. Dawooyinkaas waxaa ka mid ah aspirin iyo dawooyin tiro badan. Waa dawooyin qofka qaadanaya lagula talinayo inuusan isbitaalka ka fogaan, maadaama dhiigbax ay keeni karaan. Sida ay tahayna lagama maarmo, laakiin waxay cilmi baaristu sheegeen in huruuddu ay ku jirto maada markaasi qabanayso hawsha dawooyinkaasi. Waxaana inta badan afka qalaad lagu yiraahdaa maadadaasi curcumin, sida aynu qeybaha hore kusoo sheegnay. Huruuddu waxay hoos u dhigtaa macaanka, waxay firfircooni siisaa hormoonka insulinka. Cilmi baarisyada mid ka mid ah waxay sheegtay in huruuddu ay ka awood badan tahay 400 oo jeer daawada la dhaho metformin oo ah daawada ugu caansan ee loo isticmaalo macaanka ama sonkorowga nooca 2 type 2-ga. Waxaa kaloo la arkay in huruuddu ay baabi'iso dhibaatooyinka ay sonkortu ku reebtay jirka qaybihiisa sida neerfaha, kelyaha, indhaha iyo xididada. Cilmi baarisayaasha qaar ayaa tilmaamay raja in haddii insulintu ay dib u howlgasho
oo firfircooni yeelato in cudurka macaanka uu ka tegi karo qofka. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal muuqaalkan. Fadlan subscribe inoo saar, like garee, meel fog inoo gaarsii muuqaalkan. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe tahay naga iloobin gambaleelkana furo